السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال halkan waa wargal media taariikhdu waa 6 abriil 2020 wararka aan idin hayno waxa kamid ah khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay madaxweynaha Puntland Deni iyo ku-xigeenkiisa Karaash madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa maanta tagay deegaanka Godin Labe halkaas oo uga hortagay madaxweynaha Galmudug Cabdi Kaariye Qorqor militariga Soomaaliya ayaa kala dhexgalay Maleesiyo beeleed ku dagaalamayay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ciidamada kala duwan ee ku sugan gobolka Gado gaar ahaan magaalada Beled Xaawo ee kala ah Gorgor iyo Haramacad ayaa la soo sheegayaa inay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan xuduudka u dhaxeeyo Kenya iyo waliba dalkeena Soomaaliya wararka dibadda ee idin haynana waxa kamid ah laba dhaqaatiir ah oo u dhalatay dalka Faransiiska ayaa raali gelin ka bixiyay hadal ay sheegeen oo ahaa in lagu tijaabiyo talaalka cudurka COVID-19 qaaradan Afrika Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain ayaa la dhigay isbitaal kadib isaga oo la ildarnaa xanuunka COVID-19 muddo 10 maalmood ah wasaaradda caafimaadka Spain ayaa sheegtay 637 qof inay u dhinteen cudurka COVID-19 taasoo ka dhigayso muddo laba asbuuc ah ama 2 toddobaad ah tiradii dhimashada cudurkaas ee ugu yareyd haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa maanta tagay deegaanka Godin Labe halkaas oo uga hortagay madaxweynaha Galmudug Axmed Kaariye Qorqor iyo ku-xigeenkiisa iyo waliba mas'uuliyiin kale kadib waxa ay soo gaareen magaalada Dhuusamareeb magaala madaxda maamul goboleedka Galmudug kadib Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa waxa uu cadeeyay inuu ka tanasulay wax kasta oo khilaaf ah ee kala dhaxeeyay dawladda Soomaaliya iyo waliba maamul goboleedka Galmudug militariga Soomaaliya ayaa kala dhexgalay Maleesiyo beeleedyo ku dagaalamayay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose kadib markii madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu amar ku bixiyay in dhammaanba la qaboojiyo lana joojiyo dagaalada ka socdo dalka kuwaas oo uu ku tilmaamay nasiib darro militarigan ayaa maanta gaaray degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo ay ku kala dhexgaleen ciidamadii beeleedyada ee ku dagaalamayay halkaasi ila lagu kalsoonaan karo ee ku sugan degmada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya iyo degmada Beled Xaawo ee dalkeena Soomaaliya ee gobolka Gado ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada degmadaasi ku sugan ee kala ah Gorgor iyo waliba ciidamada Haramacad in ay sameynayaan dhaqdhaqaaqyo ay ku xaqiijinayaan amniga degmadaasi kuwaas oo ka wada waliba dhaqdhaqaaqyo aad u xoog badan xuduudka u dhaxeeyo Kenya iyo Soomaaliya waxaana ilahaasi ay noo xaqiijiyeen in Saaka Al-Saydi lagu arkay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee aad u tiro badan oo ku gaaf wareegaya xuduudka Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya halkaas oo ay ka baadigoobayeen haraadigii ciidankii ku sugnaa meeshaasi ee Cabdirashiid Janan laba dhaqaatiir ah ee u dhalatay dalka Faransiiska ayaa raali gelin ka bixiyay hadal ay sheegeen oo ahaa in lagu tijaabiyo talaalka cudurka COVID-19 qaaradda Afrika kadib video laga helay ayaga oo iskana wareysanaya sidii laga yeeli lahaa talaalka kaasoo mid ka mid ah uu soo bandhigay in talaalkaasi lagu tijaabiyo qaaradda Afrika halkaas oo aysan jirin buu yiri
maas garihii sanka iyo afka lagu xiran lahaa iyo weliba daawo iyo cid dib u xaqiijinaysa ama baaritaan dib u samayn karta aysan joogin. kii kalena uu ku raacay kadib dhaleecayn iyo cambaarayn fara badan iyo bulshada Afrika ee ku nool ee kaga falceliyey si aad xanaaq iyo qiiro u leh falkaas ay ku kaceen dhaqaatiirtaas ayaa waxa ay raaligelin ka bixiyeen hadalkaas ka soo yeeray dhaqaatiirtaas u dhalatay dalka Faransiiska. halkaad nagala socotaan waa Wargal Media. waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee barnaamijyaadkeena ula socotaan. waxaad fadlan daawade nagula xiriir qaybta hoose kuna qor fikirkaaga. sabskraibna saar muuqaalka oo share garee si uu u gaaro saaxiibadaada. ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibadeenna. sidaas iyo nabadgelyo. salaamullaahi calaykum.